ugu dambeyn waxaa hawada laga saaray fanaanka Sharma Boy channelkiisa taasoo maalmihii u dambeeyay uu xurguf u kala dhaxeeyay xaaladda sidii dhexe ayaa hawada laga saaray YouTube-kii Sharma Boy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتوا على ونكسب من الاستوديو الدافئة كجوتان. هل كان هذا ونسمع وشركة برودكشن؟ فضلا هدو تشارك ورسميا لايك سبسكرايب سا. هدي الوران دوسي جوتان الآلية أم حسنتان. هذا ما تا برنامج عيا ساكا سيدك اللي يوصل تاسي قلوب هي إنا كهرباء. هي برنامج كا حالة الصدق ده عيا هودا لقصها يوتيوب كي شارما بوي. iyo heesihii Sharma Boy oo dhan oo YouTube-kiisa ugu jiray hadaba waxa rabnaa inaan falanqeyno maxaa sababay in Sharma Boy hawada laga bixiyo yaasir bixiyo Sharma Boy oo hawada ka bixiyo YouTube-kiisa muxuu ka yiri isaga maxay ka dhigeen dadka social media hadaba taas ayaa rabnaa inaan isla falanqeyno haddii aad ogtihiin nin la yiraahdo Daahir Calisow ayaa jira Daahir Calisow waxa waaye abwaan waa heesaa waa la xamaystay waa la wariyay ninkaas ayaa saacado la soo dhaafay shalay ilaa daraaga aan jeclahay inuu yiri Sharma Boy waxaan dhihi jiray waxaan rabaa mar dhow inaan hawada ka bixiyo haddaba halkee buu ku yiri baraha bulshada qaasatan bartamaha Facebook ayuu hanjabaada soo dhigay waxaan isla fiirin doonaa halkii uu soo dhigay iyo Facebook-kiisa Daahir Calisow ayaa wuxuu yiri wiilka ku raacay waxaan ahay farmaajaha fanka waxaan leeyahay farmaajo ugu tagay adigana waad raacaysaa maadaama siyaasadii uu ku fashilmay adigana waad ku qasban tahay inaad raacdo maxaa yeelay ninka matalaysay fanka wuxuu ka baxay saaxadda siyaasadda adigana saaxadda fanka 48 saacad kadib ayaan isku soo laabanayna ayuu yiri haddaba 48 saacadood kadibtii ayuu ka dhameeyay Daahir Calisow xaaladda sidii ayaa si guud looga waayay YouTube-kii uu lahaa Sharma Boy iyo heesihiisii hawada haddaba Sharma Boy ayaa soo wuxuu sheegay inuu YouTube-kii haysto inkastoo heesihii laga bixiyay oo ka dhigtay private arrimo qaasan oo socdaan ay ka mid yihiin inuu la xiriiray dhanka YouTuberada maxaa ka wada YouTube-ka dadka Skype marka bal haddaba aan isla fiirino arrintan iyo waxyaabo kale oo si fara badan oo looga baahan inaan ka hadalno haddii wax yar nito Sharma Boy YouTube-kiisii wakaas waa 0 hal video oo live ah oo isaga xal soo dhigay ayaa yaala wixii kale waa lagu yaacay kaasna waa private marka aan ka baxno bal aan isla fiirino dadku waxay ka yiraahdeen iyo sababtay in Sharma Boy laga saaro hawada ugu dambeyn waxaa hawada laga saaray fanaanka Sharma Boy channelkiisa taasoo maalmihii u dambeeyay uu xurguf u kala dhaxeeyay isaga iyo Daahir Calisow daqiiqadaha hadda aan idila hadlayo koor ayuu soo galiyay boosid wariye Daahir Calisow kaasoo sheegay in gabi ahaanba laga saaray hawada sidoo kalena muuqaalada Sharma Boy ee si kala kacsanaa hawada markaasi laga saaray marka ay noqoto dhanka baraha bulshada haddaba channelka Horseed Funny Media ayaad inaga daawanaysaan channelkeena subscribe inoo saar program break ka mahadsanid daawadayaal meel kastoo aad joogtaan sida aad ka warhaysaan Daahir Calisow iyo sidoo kale fanaanka Sharma Boy ayaa waxaa ka dhex bilaamatay colaad iyada oo colaadan ama xurguftan ay ku saleysan tahay barnaamijyo kala duwan oo ay nimankaas isku qabsadeen haddaba fanaanka Sharma Boy ayaa loogu goodiyay wixii ka dambeeyay showgii Iida uu ku qabtay magaalada Muqdisho in 48 saacadood gudaheeda uu dareemi doono jab aad u weyn marka ay noqoto dhanka baraha bulshada waxaan ognahay in baraha bulshada uu ku leeyahay channello iyo sidoo kale page kuwaas oo uu isticmaalo in uu bulshadiisa ama taageerayaashiisa fanaanka Sharma Boy uu kula xiriiro dhanka channelka waxa uu qornaa magaca Sharma Boy oo waqti xaadirkan marka aad geliso dhanka YouTube-ka aad heesiisa qaar marka aad ku dhufato ay muuqanayso in channelka uu private yahay arrintan lama garanayo sababta ka dambaysa balse guushaas waxaa sheegtay ninka lagu magacaabo Daahir Calisow oo isaga isku haysta inuu yahay boqorka markaasi dhanka YouTuberada ama boqorka dhanka social media cidii sababta loo leeyahay waa boqorka dhanka YouTuberada ayaa waxay tahay Daahir Calisow waxaa jira YouTuber fara badan oo hadda ku hore uu hawada ka saaray marka wuxuu qabaa waxaa la jiray cilmi u qaasa وقفك يوتيوب كيسة وهوده أقصار كرو
teeda kale wuxuu qabaa cilmi kale oo ah inuu qofka YouTube-kiisa videoyaasha ku jiro uu ka bixin karo isagoo haysan password-kiisa ilaa iyo Gmail-kiisa haddaba taasi waa cilmi gooni ah taas ayuu u leeyahay ninkaas waa nin dhanka YouTube-ka aad ugu firfircoon ka hor timaada ama amaradiisa qaadan weydana ay ku dhacayso cawaaqib xumo aad u weyn haddaba daawadayaal haddaba arrintu aad ayay markaasi u cakiran tahay maadaama ninkaasi hawada laga saaray janaalkiisa iyo sidoo kale muuqaaladii uu soo dhigi jiray balse marka loo eego heesiisa qaar ayaa waxay ku jiraan janaalada qaar oo caadi markaasi aad uga daawan karaysaa laakiin waxaad moodaa in dagaalka uu sii qiraaraaday talow janaalka Sharma Boy yaa ah qofka markaasi bareefad ka dhigay muuqaaladiisa video haday aan daawaday Sharma Boy live waxa soo galay isaga ayaa afkiisa ka caddeeyay inuu YouTube-ka ka dhigay live taas oo u maleyn inuu uga hordagayo in YouTube-kiisa dhan laga jabsado oo isagoo dhan uu waayo hadda uu waayay videoyaashii oo kaliya balse isagu wuxuu ka hortag samaynayaa inuu videoyaashii waa laga taagay inuu YouTube-ka ilaashado oo kaliya marka saas daraadeed isaga ayaa wuxuu sheegay inuu YouTube-ka bareefad yahay shaqo guud ay ka socoto laga yaabaa in ay tahay arrin markaa ay ka dambeeyeen qaar ka mid ah saaxiibada fanaanka Sharma Boy oo iyagu ogaa oo markaasi Daahir Calasow inta lacag u ballan qaaday uu isagu markaasi ka codsaday in uu hawada ka saaraan mise laga yaabaa inay tahay dabin ay u dhigeen saaxiibadiisa si kastaba hadda koor ayayd markii ay isku dhaceen ninka lagu magacaabo Daahir Calasow iyo fanaanka Dayaxdal Nuurshe taasoo keentay si ugu badnaa fanaankaasi uu lahaa in baraha bulshada laga xanibo laakiin markii khilaafkooda muddo uu soo jiitamayay ay dhacday in miiska wada hadalka lagu xalliyo taasoo ay ka dambeeyeen rag aad u culculus haddaba ma laga yaabaa in sidaas oo kale Daahir Calasow uu raadinayo qaabkii uu Sharma Boy uga dhigi lahaa fanaaniinta uu gacanta ku hayo oo markaasi amarada uu siiyo mise laga yaabaa tan in ay suurto geliso in dagaalka uu sii ballaarto oo Sharma Boyna markaasi heesiisa uu sii laba jibaaro uu ku karbaashayo ninkaas lagu magacaabo Daahir Calasow haddaba xaaladda ayaa caawa u muuqata mid aad u cakiran maadaama daawadayaal waqti xadarka idin la hadlayo channelkii intaas oo 100,000 oo subscribe gaaray in markaa hawada lagu cunay oo isaga imaka la dareemayo in faaruqnimadiisa ama uu faaruqiyayba dhanka iyo baraha YouTube-ka haddaba arrintan waxay jab weyn ku tahay taageerayaasha ninka lagu magacaabo Sharma Boy oo qaarkood imakaba ka raadinaya YouTube-ka ka barbaaraya maadaama ninka Daahir Calasow la yiraahdo uu ku soo galay dhanka Facebook isagoo sheegay in markaa lagu guuleystay waxa uu yeeray in la baabi'iyo Sharma Boy oo isagu uu ku haysto in heeska haram cad iyo inuu fanka ka yahay farmo haddaba waxyaabaha sababay in Sharma Boy hawada laga saarayo waxa ka mid ah ayaa la leeyahay in heeskiisii ugu dambeysay ay ku jirtay inuu dhahay waxaan ahay farmaajaha fanka iyo sidoo kale haram cad uu amaanay ilama aha in haram cad lagu sii haystay waxay la tahay maadaama uu Daahir Calasow yahay siyaasi hoose oo kuwa u wareeya waxyaalaha siyaasiyiinta iyo waxyaalaha ku hoosjiro yahay inuu ka soo jeedo farmaajo Facebook sidaan ku soo aqrinay qoraalkii uu soo qoray waxa ka mid ah ereyadiisa maadaama uu baxay ku fashilay siyaasadii madaxweyne farmaajo adina farkii waa ku fashilantoo 48 saac kadib waad ka baxaysaa saas daraadeed waxaa loo malaynayaa dhibaatada ugu weyn ee haysato Sharma Boy misana sababta looga saaray hawada inay tahay farmaajo inuu isku soo qabto halkaasna laga dareemay inuu taageero ku yahay farmaajo haddaba wixii ku soo kordho waan la soo socodsiin doonaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin maadaama aad channelka subscribe noo saarteen like noo saarteen sidoo kalena commentiina aad noo dhiirigelisaan fadlan waa markii labaad haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar haddii aad horaan noo sii joogteen waxaan ku leenahay 100% aad iyo aad